السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين قارية كسر هذا القناة كهنا فضلنا هديان وعصب تسبسكرايب إنه ده هذا هرنا لجوك شيرت لايك كومنتي وإنه دير جلين إن ما أنتم حان كهل الدونا بيوتنا كمحل الدونا إن محي هي توت هيلثنا كمحل الدونا إن شاء الله ما أنتم حان كهل لنا دعاء وخيمة بدن إسلام مركينا آد wax isbedel aad ka dareemayso insha Allah ta'ala mar walba turdooyinka Allah loogu duceysto kulli waa mid ku soo degdegta ama mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala dib kuugu dhiga ama mid dambiidaada lagu dhaaf inay ku noqoto afwan marka ducadani waa duco runtii hadii aad si qalbi ah ugu duceysatid wax walba ku fududaanayaan isla markiina aad helaysid insha Allah wax tarkeeda ducadan mar walba ducadu waxa weeye waa muhiim mar walba waxaan nahay adoomada Allah mar walbana Allah waa inaan wax weydiisana wax walba oo doonto Allah muxuu yiri wayda sa'altumuhu fas'aluni hadii aad wax weydiisanaysaan aniga i weydiista wax oo bani aadan waxba ha weydiisanina marka Allah mar walba oo wax weydiisato aad buu ku soo dhaweynayaa aad buu maxay ugu farxayaa adduunkiisa oo Allah baryayo markuu arko laakiin bini aadanka marka wax weydiisato ama laba jeer saddex jeer way ku nacayaan marka mar walba Allah ayaa wax walba ku fulin kara marka ducadan waxa weeye yaa waliyu yaa waliyu yaa waliyu yaa waliyu ayaad akhrisanaysaa intaad awoodo hadii kale waxaad ka akhrisanaysaa 41 jeer si niyad ah ayaan u akhrisanaysaa ducadan mar walba culeyska isla markii ku haa insha Allah fudud ayaad ku bedelinaysaa waana duco la tajribeeyay ma sha Allah aad loogu faa'iiday ma sha Allah wallahi ducadani aniga aad bay iiga gadan tahay waa duco aad u wacan mar walba si niyada Allah isla markii hadaad ugu duceysato 41 jeer hadaad tiraahdo Allah subhanahu wa ta'ala isla markii culeysku ka qaaday insha Allah ta'ala ku duceysta gabdho iyo wiilalba insha Allah ta'ala waxa rajeenayaa inaad si niyad ah ugu duceysataan isla markiina culeyska Allah idinka qaado soo dhawaada